الله الصلاة والسلام على رسول الله بعد ومع سنتهين صحافة شرفت له وإن كجمع هاد علينا دلال كينا دلقات كينا سيدا أفريانكو أو شاقبا شركة أنو وحلوجها اللي حالة دلكة يجارها شركة هذا حالنا كصعدة سيدا وذا أكتهين دلكان دولة نماذج هذا صعد بربر كي كدي بدت صوماليات أو حجرة ذا يسوي تجي وحيسوقاتين نظام فدرالي annaga intii aan joogna meesha cidna ma weydiin federaal ma rabtiin ma rabtiin lama dhihin laakiin waxaan ku khasbanay inaan hogaansano wixii dadku ku soo heshiiyeen Soomaalidu ku soo heshiiyeen hadii la rabo marka in laga guuro nidaamka federaalka waa in hadana lagu heshiiyaa waxyaabaha marka aan ka walaacsanahay oo aadka aan uga soo horjeedno in sharcigana la jibiyo federaalkana la dumiyo waxaan u aragnaa taas inay horseedayso burbur dawladeed waxa dawlad lagu yahay waa dastuurka waxa la rabo in la wada ilaaliyana waa kaas qolada ugu horeyso aan rabno inay ilaaliyaan dastuurkana waa dawladda dastuurku waxa uu siinayaa madaxda iyo dawladda inteeda kale iyo shacabka Soomaaliyeed xuquuq iyo waajibaad kala duwan qola kastana waxa laga rabaa inay xuquuqdeedana fiirsato waajibaadkeedana gudato waxaan aaminsanahay marka arrintaas dawladdu inay aad uga gaabisay waxaan aad uga xunnahay in halkan shir maamul goboleedyada iyo dawladda u dhaxeeya lagu qabto Soomaaliya dhexdeeda maamul goboleedyada ay ka maqan yihiin arrintaas waxay dhiiri gelinaysaa in dalku kala furfurmo waxaan u aragnaa khatar soo waajahaysa dawladnimada Soomaaliya sidaas darteed waxaan rabnaa inaan idin sheegno inay habboon tahay internationalku waa mahadsan yihiin dadaal badan ay sameeyeen laakiin annaga waxaan filaynaa inay dhiiri geliyaan wadajirka dadka Soomaaliyeed wadajirka maamul goboleedyada dadkana dawladana lagu cadaadiyo inay ilaaliso sharciga maadaama dad la soo aaminay shalay xil loo dhiibaan ahayn inaan ka aamusno waxyaabaha khatarta waxyaabaha khaladka dhacayana lama habboona sidaas darteed waxaan go'aansanay inaan idiin sheegno inay tahay arrin aan fiicnayn in la qabto shir dawladda iyo u dhaxeeya internationalka ama partnerska waxa lagu magacaabo haddana ay ka maqan yihiin maamul goboleedyo taas waxaa sii dheer kalsooni darrada sii kordhaysa oo shacabka ku dhacaysa waxaan ognahay waxa loo socdo waa doorashaduna waxay u baahan tahay jawi degan oo siyaasadeed waxay u baahan tahay in la isla meel dhigo nidaamka doorashada soo socda waxaan ognahay dawladdu inay kaligeed gacanta ku hayso nidaamka doorashada una dhigayso sida ay doonto sidaas oo kale waxaan ognahay arrimaha amnigu inay faraha ka baxeen oo weerarada ka dhaca hadda meesha saldhigga oo dawladda magaalada Muqdisho inay ka badan yihiin kuwa hore cabsidu inay sii kordhayso sidaas oo kale dawladda waxa loo abuuray inay u adeegto bulshada waxyaabaha soo kordhay waxa kamid ah in jidadku xiran yihiin laba isu gudbi karta aysan jirin qof walba la weydiinayo dawladda ma u shaqaysaa marka su'aashu waxay tahay oo dalkan xaq uma laha miyaa inuu ku socdo ku safro magaalada dhexdeeda ama banaankeeda qof aan dawladda u shaqayn arrintaas marka waxay saameyn ku yeelatay kala xiraashada magaalada waxay ku yeelatay saameyn dhaqaalaha waxa laga hadlayo waa dhaqaale muxuu ku yimaadaa muxuu ku kordhaa waa in badeecaduhu ay isu gudbi karaan waa in dadku isu gudbi karo waa in dhiirigelin ay jirto dadku inay wax soo saar u jeestaan taasna waxaa saldhig u ah amni iyo cadaalad labadiina ma jiraan maxaan ku yiraahdaa mararka qaar marka laga hadlo wax lagu dhaliilayo dawladda dad badan waxay u fasiraan si aan habboonayn in la dhaliilo dawladda waa waxa axsaabta loo sameeyay axsaabta waxay u taagan yihiin inay dhaliilaan dawladda toosiyaan waxay u taagan yihiin inay soo bandhigaan barnaamijkooda siyaasadeed ee loogu diyaar garoobayo doorashooyinka marka shacabka Soomaaliyeed waxay u soo mareen inay inta hadda ay haystaan ay helaan dadaal fara badan iyo sabar badan iyo dhibaatooyin fara badan marka waxaan leenahay ma habboona in maanta annagoo joogno dib loo celiyo annagana ma habboona inaan fiirsano ka aamusno waxaad wada ogtihiin aniga iyo madaxweyne xasan madaxweynaha markii la doortay labada garab aan ka istaagnay commitment-yaan siinay inaan la shaqaynayno laakiin dhinaciisa ka shaqay weyse qof walba oo hadda wax tabanaya ama ha noqdo maxaa la yiraahdaa
madaxweynaha maxaan ku yidhahdaa Jubbaland Axmed Madoobe ama ha noqdo Siciid Dani labaduba shirkii Garowe aan ku galnay waxay diyaar u ahaayeen oo soo bandhigeen inay diyaar u yihiin inay la shaqeeyaan dawladda laakiin madaxweynuhu asaga qaatay shirki ka dambeeyay oo la isugu yimidana waa lagu heshii waayay dawlad goboleedyada kale oo hadda shirka fadhiyana sidoo kale u ballan qaadeen dalkan waa dawladnimadiisu hadda kabashay ku jirtaa ma rabna in dib loo celiyo waxaan rabnaa in la ilaaliyo dastuurka waxaa la jebiyey dastuurkii waa laga leexday meelaha la iska dhigay waxa aan dawlad ku nahay oo aan ku kala dambayno aan ku wada soconana waa dastuurka haddii dastuurka meel la iska dhigana dawladnimo ma jirayso marka annagu waxaan rabnaa inaan farta ku fiiqno khaladaadkaas muuqda oo aan laga aamusi karin oo ay suuragal tahay dawladnimadu inay u dunto inay yihiin kuwa khatara dadka Soomaaliyeedna ay ku baraarugaan waxa aan ka hadlayno waxa naga hadal siinaya hadal jacayl maaha waxa naga hadal siinaya waaqic jira xanuun dadka Soomaaliyeed taabanaya khalad waaweyn oo jira oo taariikhi oo laga aamusi karin oo qofka ka aamuso bari su'aasha la weydiin karo qarankan marka uu dhumaayo oo uu dumaayo qofka wax gartay inuu ka aamuso maaha dawladnimaduna waa wax la qawaacid iyo usus ay ku taagan tahay haddii laga leexdo dawladnimo lama arkaayo kursiga waa lagu tartami karaa wax culaysa ma leh laakiin waxaa la rabaa dawladnimada inay noqoto mid la wada leeyahay laga wada shaqaynayo qof la arkaba uu ka taagan yahay geestiisa kana celiyo hadday noqoto dawladnimo dad kooban gacanta ay ku hayaan waxay doonaan ka sameeyaan arrintaas waxay keenaysaa khatar weyn maalin walba waxaa laga hadlaa dhaqaalaha kordhay shaqo abuuraa la helay marka aad weydiiso dadaa shaqada laga saaraa haddii xataa dad la gelinayo kuwa hore ugu jiraa laga saaraa dhaqaalaha ma wuxuu kusoo kordhayaa jidadku inay xirmaan oo wax soo saar uusan jirin oo wax isu socon kara aan la arkin dawladda dadka marka ay ku dhex jiraan laba cadow oo midna al-shabaab yahay midna oo dawladda yahay dhaqaalaha meesha uu ka kordhay anagu ma garanin ma beerihii wax soo saar ku kordhay ma warshadaha la keenay ma dad shisheeya maalgashi sameynaaye ma Soomaaliya maalgashi keentay waxay u baahan tahay dhaqaale inuu kordho political stability u baahan political stability ma jirto maanta qof dawladdaas ka tirsan ama wasiir ha noqdo ama xildhibaan ha noqdo oo loo ogol yahay inuu xaq ka hadlo ama runta sheego ma jirto annagana hadda asbaabta loo qaylinayo oo maalin walba la isu caaynayo waxa ugu badan maxaa runta u sheegaysiin cimrina waa joognaa xilkii ugu weynaayna waa soo qabanay maanta maalinaan aamusi karna ma aha kumana baqayno wiilal yaryar oo masaakiina oo ama qurbaha jooga ama laban rabaabiyey ee la soo adeejiyey ay caytameen annaga xaq uguma istaagayno dalkan annaga waxaan soo hogaaminay iyadoo xaaladiisu adag tahay falilaahi alxamdu in la isdoortaan keennay waa nagala guulaysta waxaan dhahnay wakaas maalinna ma hor istaagin laakiin wixii aan ku soo dadaalno marka ay dumayaan waxaan ku khasbanay inaan u istaagno mar kale oo aan idhaahdo maya qaranka yaa la duminay waxaana aaminsannahay dawladdii maxamed siyaad barre iyo dawladihii ka horreeyey haddii Soomaalidu u istaagi lahaayeen sidaas oo kale waxba nagama halaabeen adduunka kaligeen maahin xurriyaddu waa shay qaali ah mana laga tanaasuli karo xurriyatul qawlka ama xurriyatu tanaqul ama xurriyad ayan kaanad waa inay dadku haystaan markaasay dareemi karaan dawladdu inay dawladdoodii tahay aad iyo aad u mahadsantihiin waxaan u dhaafayaa madaxweyne xasan sheekh isaga dhamaystira insha Allah